garoonka kubadda cagta Xaaji Daahir ee magaalada Boorama ayaa laga bilaabay howlgallo kor loogu qaadayo bilicda garoonkaasi oo dhawaan la filayo inay ka bilaabmaan tartanka horyaalka qaybihiisa kala duwan. Howlgalkan ayaa ahaa mid ay iska kaashadeen urbajoogta, qolqoljoogta iyo dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa dhammaantood iska xilsaaray sidii ay u soo celin lahaayeen bilicda garoonka. waxaana halkaas ugu horeyntii kaalin Muxyidiin Cabdilaahi Warsame oo ku magac dheer Guray, sidoo kale Maxamuud Xuseen Ibraahin oo ku magac dheer Maxamuud Darbad oo ka mid ah qurbajoogta gobolka Awdal ka soo jeeda isla markaasina taariikhda kubadda cagta baaldahaba kaga jira ayaa ka mid ah qurbajoogta dadaalka badan ku bixinaya sidii sportska gobolka Awdal uu horumar ballaaran u sameyn lahaa. xaqiiqdii maanta halka uu joogo iyo halka uu ka yimiday فرق وين بعود حيا وعلى أساس تا كلام كان أو قشن كيو ماشين جرين كان ذكيسان أو بوره أيس بورا كدول نسمى قشنا الحمد لله وين ما تهلك نسوق جاري وحوجا وحير باكير سيا وما أنت نضافت أيام كوب بلوني أنا قلت لك عشان تغييري قبل كان هي دولة هوسة taasoo ay hordhac u tahay ciyaarihii Serie B oo ka bilaabmi doona bisha 5teeda aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan dhalinyaradan ka soo qayb gashay waxaan rajaynayaa garoonku waxyaalaha uu u baahan yahay waxa kamid ah oo aan doonayno mustaqbalka inaan ka qabanno oo dal iyo dibadba la iska kaashado in kaadkan iyo kaabadaha iga dambeeya inta u dhaxaysa in laga dhigo marmar inaan dhigno oo orodkiina noqon karta in dhaska iyo dhirta ka baxaysana aanay mar dambe aanay ka baxaynin. dalba dhacay wasaaradda isboortiga kullay maamul cusub baa yimid oo isboortiga ehel u ah inaan wax la qabanno inaan wax kala shaqeyno inaan gudaha iyo dibadba iskaashano dhalinyarteena wax la qabanno garoonkeena aan hagaajino insha Allah bismillaah kariim iyada oo lagu qaban doono tartankii Serie B-da bisha 5teeda way fiican dhammaan qurbajoogu hawsha fiican ee ay maanta halkan ka qabteen iyo abaabulka dhiiran ee ay ku garoonka dib ugu habeynayaan taasoo loo sii gogol xaarayo ciyaaraha soo socda annagu ka dawlad hoose ahaan waaxda arrimaha bulshadu waxa hoos timaada qayb isboortiga shaqaan ku leenahay wax kasta oo horumarina oo gobolka ka jira oo isboortiga town bay ka qayb tahay. Samaroon Cabdilaahi Cilmi oo ah madaxa tartamada kooxaha heerka koobaad ee Somaliland isla markaasina ka mid ah gudida xiriirka kubadda cagta ee Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi runtii maanta waxa halkaas ku kaya keenay dabcan waa la garanayaa waxa weeyaan waa ciyaaraha iyo sidii kor loogu qaadi lahaa in magacaaban oo xilal haysa iyo inaan haynba kullu waxa loo baahan yahay nin walba qaybtiisa inuu ka qayb qaato gobolkuna waxa weeyaan dadka kale inta wax laga raadin maayo anaga jeebkayga wax gelinayna inta yadan joogtay inta kale inoo muuqata laga bilaabay inta imka waxa lagu wax wadaay ee garoonka lagu hagaajinayo nadaafadiisa waxa weeyaan jeebkayga gelinay dhamaantayo qofka wax qabsanna cid wax la qaban kartaa ma jirto taa hal ogaado inta meel kale loo qortaagayo runtii heer la gaari maayo saxaafadan waxaan oran lahaa runtii iyaguna qaybtooda oo marka ay sidoo kale hawluhu socdaan duubisteeda mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Awdal oo iyagna dhankooda hadalka iska daba qaatay ayaa xusay garoonku bayra dhibaatadiisu maanta waa cagaftiga ku jirta waa nadaafad isma fara badan oo in wax laga qabto baahan baa jira rag badan oo ballan qaaday baa jira saanin kala qurbajoogta hawluhu way socdaan waa min mahadnaqaynaa dawladku waa garoonkeedii sidii aan wax wada qabsan lahayn aniguna waxaan diyaar qabanaysaa qurbajoogta waxa la doonayaa inay ka qayb qaataan horumarka qaybtooda isboortiga sida fiican ee maxay ahayd inay u socdo maadaama imika isboortigu la geliyay dardar cusub wali ma jirin horyaalka waa markii ugu horeysay laga qabto Somaliland horyaalo gobolka Awdal bisha waxa noo bilaabay insha Allah bisha 3aad qurbajoogi yar iyo weynba maanta way joogan alla ninkii kubadda ka ciyaariyay garoonka maanta wuu waa xaadir intoodii fiicnayd way joogan waxa la yidhi nin walba halka xarunta balbashe qurbajoog waxaan ka codsanaynaa
garoonkii roogii orodka wataa cagafta ku jirta maanta in ay ku soo dadaalaan aad baan ugu farxay maasha Allah garoonkii dib habeen lagu samaynayo in maad garanaysaa mar uu gaadhay isboortiga gobolka Awdal in maantana guulaaba iyo aan la garab joogno badda wixii aan naqaanay taliya tusaalaba ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee degmada Boorama Maxamed Ibrahim oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee gobolka Awdal ayaa sheegay in doorkooda ka dowladda hoose ahaan ay ka qaadan doonaan horumarinta sportiska ee gobolka. waxa maanta aan halkan saacada u nimidnay iyadoo hawlihii xafiiska shaqada aan ku mashquulsanayn sida aad ka muuqato muuqaalada aad u jeedaan waxa hawlgal laga sameeyaa garoonka in laga xaaro wixii qashina iyo meelihii biyuhu ay u fadhiisanayeen ee dhibaateynayay roogaasi quruxda badan ee yaala aniga iyo daadaydu nasiib uma helin inaan roog noocan ku ciyaarno laakiin se dhalinyarada maanta inay loo daryeelo weey waxaan leenahay dadka dibadda jooga ee qurbo joogta wax qabadkiina inaad idinkuna iskugu keentaan iyo ciyaartooydii hore aad iskugu keentaan imikaba kama gacan madnidibna oo had iyo jeer hiili hoob oo la garab joogtaan waan idinku dhiiri gelinaynaa ka dowladda hoose ahaana sidaan maalintii horeba sheegay waan idinkala qayb qaadanaynaa